waxa guud ahaanba dib u dhac iyo hoos u dhac ku yimid saraca ka soo baxa beeraha oo inta badan gobolada galbeedka Soomaaliland ee ugu horeeya gobolka Awdal oo ku caanka yahay kaasoo inta badan ku meegaarsan gaar ahaan magaalada Boorama. haddaba telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV oo maanta gaadhay deegaanada haruurka ama si dadka beero haddaba telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV oo maanta uu kurgalay xaaladaasi sharci ah ku baabaayay guud ahaanba dhulkii beero qodobtadii ay noqdeen dhul aan wax dalagii haatan ka soo go'aynin sanadkani ayaa waxa ay dadkii aan kula kulanay oo iyagu caleen mooyaan aan calaf kale ka sugaynin haruurkii ay tabcadeen ay u sheegeen Raya TV sida tan Umar Amaan isman hadliyo bal iiga waran walaal waxaan arkayaa abaar baa dhacday oo waa kan haruurkii biyo la'aan aan u bixin bal iiga waran xaaladda imka beerleyda ay ku jirto warun horta abaar xoog la dhacay abaaruna in badan ayaabay saameeyeen muddo 10 sano dhulkan roob ma helin sanadkan in yar roob badnayn biya ku daay waa beeraha wad arkaysaano wax calaf leeyahay kuma soo dhawaan caleen unaad ka heshaan weeyaan dad ku dhex joogaan haruurna xabad ayr baka muuqata waxa yar wax naf lahayn wax dadku filanaan ahayn marka aad iyo aad bay dadku iska dhibaataysay haddii ay sii jirto roob la'aantani ama imika baan arkayna dhibaatadan taagani dadku maxay dhaxli doonaan mid abaar waxa dhexda doonaan iyo xoolo ka dhamaado iyo dhulka laga qaxootiyo dadkuna aad bay iska yeeldareen wad arkaysaa wixii day munaafacaadsan wax kale ma baxayna beeraha yar baahnay ku noolaan dadka qoomiyada dhulka ku nool markay abaaro ku dhaceen ay aad xog dhaceen abaarada xoogaysteena dadku wax ka guuray iyo xooliba ka dhamaadeen oo magaalo galay iyo badayn wax loo imka dhulka joogay ma jiraan marar haruurku soo baxo oo marka haruurkii soo baxana ay calafyo kale halkii inagu ganacsi aad ka dhigan lahaydeen ay soo saaraan hay'adaha Kenya oo nagu way jirtaa sanadada iyo marmar bay soo yar martaa wax sabab badan maaha hay'aduhuna badi xaqan way ku yar yihiin dadku waxa yar beertaan waxay wax ka helaan dhibaatada ugu soo xoog badan lehna imka biyo yaraan iyo nimcada Ilaahay oo yaraatay markii dhulku samaraaq noqday waxaan arkayaa inaad guunayso haruur fiican meeshan kuma yaalo lacag baa la geliyay waqti baa la soo ilaalinayay dhibaatadii waa tan haddana waxa la leeyahay adduunyo laga dhur sugay daawalba wax ka badan baa laga helayay haddii Ilaahay wax ka dhaamo kala bixiyo roobku inay bato wuxuu baad ka yeelaysaa ka guuro qofkii ku haray weeyaan dadku way ka yaaceen wax magaalo galabay noqday waa arkaysa beeraha markay waxba munaafacaad ka soo baxay way dadku magaalo wada galeen oo la yaraan abaarba ka wada marsay abaartuna deeseeda bood og tahay muddo maxay 10 sano soo hormaray ayay aad u saameysay waxaad iga warantaa imika marka haruudhada la gooyo haruurkii waa kana faa'iido ma leh xoolo daaqayna ma arkay imika dhulkan ama ari ama lo fiican ma arkayo ma la oran karaa xoolihii markii waxay cunaan waayeen bay deegaanka ka dhamaan warun dabcan markay xooluhu cunaan markay waayaan way dhamaadeen sidoo kale xatan waxa lagu jiraa oo la galay xilligii jilaalka iyadoona wax roob dambe munaafacaad leh iyadoo ramxaadka ee bay furayiin haddana aan laga sugaynin samada ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilligan ee xilli guud ahaanba sharci dadku ay tabcadeen oo meesha ka baxa oo noqday muuqaalkan inii muuqda ee guud ahaanba baabaay wuxuu ku noolyahay waa rafaad iyo ciriiri kii ugu daraab ku jira igu waran bal beeraha xilligan way bixi jireen beeraha eegasa ay yihiin haruurku waqtigii waxa la joogay imika la goosan jiray haruur caadi ma baxay mise maanta ma jiro waxba yarantay wax ka soo baxay wax jira wax biqilo yar ayaa jira waana arki kartaan oo niina lagu arki karaa maanta ay liitaan dadku aad hoos u hooseeyeen oo suntiin biyo la'aan baan ugu sii daran waayo sababta dadka dhulka ku wad martaan qof aad ku arkaysan hal wuu ka jeedo dhulku ka tagay dadku wuu ka guureen oo abaar ba ka kaxaysa xooluhu ma jiraan wax xoolo oo nool ma jiraan haba yaraatee loo iyada arki maysidba neef ariga laba nool fadaween arkaysa oo lagu dhaansado wax kale ma jiraan waxaan deganahay 30 sano aan ahay beerley oo beeru ka shaqeeyaa sanadkan maanta 30 sano sanadkan maanta ka wada ugu daran labada sawda kan maanta kulma kaaga dambeeyay maalintii daran kan maanta ugu adag kan maanta yaa ugu adag ugu dhibaato badan dhibaatada maanta ay hore ima soo marin beertii la qoday waqti la geliyay haddana manfac soo saaray wixii deynaan ama hadan beerta ku qoday waa la leeyahay shinidaan soo ama hadan la leeyahay waa caleen yadina
calaf iyo cuntadii waxaan ka sugayn halkaasay noqotay dadkii waxaan ka soo amaaday ama cagaftaan ku qodeen ka amaadeen way igu leeyihiin way dul taagan yihiin hadhuudh ma baxay markan haba yaraatee wax ka soo biqla ma jiro wax soo booday waxaan xusul aan dhaafin oo biqila jira xoolihiiba calaanka ma xoolaha gacanta ugu fijinaya waxay gacanta ku fijiyaa hadhay waxa gacanta ku fijinaya wax kale ma jiraan nolosha dadku saas ay u liidataa way ta kale waxaan ku weydiinayaa markaad 30 sano beeroolaad soo hayd sanadaha hadhuudhadu way bixi jireen way badnayd ta kale waxaan ku weydiinayaa marka imika hadhuudhkiisana u bao dhibaatadina tan taagan ay tahay xooluhu iyo dadku maxay ku baxsan doonaan markay hadhuudhadiisana bixiyaan ilaahay ma badbaadin karaa bini'aadam wax ka qaban karaa ma jiro meel u baxaana ma jirto maanta dhulku waa badankiisa waa isku mid in waxaan bixi jiray ama waqooyi ama koonfur baa loo bixi jiray Itoobiyaas loo guri jiray xadka ayuu ka sal tagi jiray ama bari waliba ama galbeed baa loo guri jiray uu sinaaday marka abaar simaa ma ka dhacday abaar iyo tudda labadaba ka dhacday marka dhibaatadu allun baa la sugayaa allun baa laga baryahay bini'aadam wax loogu gurmayo oo laga sugayaa ma jirto isku soo wada duuba dhibaatadan haysata beeralayda calfan jirtay waxa ka soo baxa dhulka ayaa haatan waxay soo food saaraysaa dhibaato xoogan iyagoo sheegayna guud ahaanba xoolihii ay dhaqani jireen inay guud ahaanba ay dalka ka hayaameen kadib markii la waayay dalagii xoogahaasi ay quudan jireen walo roobashii guga aanan hore looga faa'iideysan intii dambana ay noqdeen kuwa dabayaaqadii sanadkan wax laga beeray guud ahaanna lagu kala tagay markii uu roobku ka dayriyay lama soo go'aanka ay ka qaadani doonto walaal Soomaaliland gobolada galbeedkana ay soo martay abaar xoogan sanadii ugu dambeeyay xukuumadda Soomaaliland haatan beeralayda gobolada galbeedka Soomaaliland dhaqaale hoosaanta dhinaca deegaanka iyo wax soo saarka ee soo wajahday dadka taagtar daran ee iyagu intay abaari ka soo noqdeen wixii ay qoteen oo noqday saraca sida tan u baabaay waa Hori Axmed Hori Raya TV galbeedka magaalada Boorama